dhammaan waxaan salaamayaa ugu horeyn shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad dhammaan shacabweynaha galkacyo oo hadda aan ku suganahay xarunteeda gaarka ah oo qaybtan indhaha magacaygu waa Dr. Saciid Cabdicasiis Cabdi Cadeysay oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka iyo daaweynta indhaha kan soo shaqeeyay isbitaallo badan oo dalka dibadiisa ah gaar ahaan dalka Pakistan halkaas oo kusoo qaatay waxbarashadeedii guud ahaan tan gaar ahaaneed takhasuskayga indhaha bachelor waxaan ku diyaariyay Pakistan takhasuskayga waxaan ku diyaariyay Pakistan waxaan ka soo shaqeeyay Pakistan ilaa muddo 4 sano ah oo 4 sano ugu dambeysay oo isbitaallo dawli ah iyo mid private intaba marka hadda waxaan ka howlgalaa magaaladan Galkacyo isbitaalka weyn ee Galkacyo ka shaqeeya subaxdii private kan galabkan soo aadaa xaqiiqatan inta hadda aan joogay ku dhawaad ilaa 1200 qof way soo gashay inta ay diiwaan gashan ilaa waxaa laga imanayaa Soomaaliya Mexico laga imanayaa ilaa Ethiopia laga imanayaa Galaadi Booq dhinacan kale ilaa Guraceel racdaado marka bukaanadu way kala duwan yihiin badana waxa ugu badan bukaanada ay laba qayb kala qaado qayb waa wixii qalliin oo kala ah qalliin ka cabanaya waa qaybtan la xiriirta cataractiga ama caadka oo la yiraahdo dalka Afrika qaaradda Afrika oo dhan boqolkiiba 60 waxay qabaan waa cataract ama caadka waxa loo yaqaan boqolkiiba 60 way jiraan wadamo kastaba macnaha cimilada la xiriirta in wadankii cimiladiisu way isleeyihiin Soomaaliya oo kale waxa jira allergy ba ugu badan oo xanuunada hadda mataqaana soo food saar taasoo keenaysa wadankii aan dhisnayn oo ama boorka ha u badnaado ama hawada hygiene ahayn oo aan nadiif ahayn ha noqoto waxa soo raaca trigium oo iyadana la xiriirta laftigeeda cimilada la xiriirto ah cad ama hilib indhaha gal marka labaas qayb weeyaan bay u kala baxaan maanta waxaan jeclaan lahaa in number 2 aan ka wacyigeliyo ama wax uga sheego dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad intaba waxyaabahan loo yaqaan sensitivity of the light waxa weeye qofka inuu allergy ku yahay ama xasaasiyad ku yahay iftiinka oo dhan iftiinkaas wuxuu kala qaybsamayaa mid natural ah oo dabiici ah sida qorraxda oo kale iyo mid kale oo manualka oo dadka gacanta ku soo biyaan light ha noqdo kan leerka kale misalan shucaac watal flower watal oo mataqaana ku dhacaya indhaha ku dhacaya waxay sababayaan indhihii hadhow in markaasi laba xaal inay noqdaan xaalka koowaad in indhihii xanuun ku imaado ama cuncun indhihii yeeshaan ama biyo ka imaadaan ama indhihii isku dhag yeeshaan ama indhihii guduutaan waxaas oo dhan waxa sabab u ah waxa weeyaan smartphone ka noqdo mobile ha noqdo maxaa la yiraahdaa laptop ha noqdo iPad ha noqdo wixii qofkii fox uu macnaha meel fox gareynayo oo iftiinkiisa macnaha mataqaana indhihiisi wixii ay xoog saarayaan shucaacaas ka soo baxaya ifkaas taas waa taas weeye midan kale qorraxda kale iftiinka iyadana ay leedahay kale waxa saameyn bay iyadana ku leedahay indhaha taas marka waxay sababaysaa in aragtidii labarkow yaraato oo qofkii aragiisii maalin ka dambaysa uu soo yaraado waxay sababaysaa indhihii inay guduutaan waxay sababaysaa indhihii inay biyo ka imaadaan waxay sababaysaa indhihii qofkii madaxii inuu madax xanuun badan yeesho sababtoo ah waxa aad u yaraanaya waxa weeyaan waa aragtidii meeshii la rabay inuu ka arko oo ahay 6x6 qofkii inuu aragtidiisa saxda ah uu ku arko maadaama ay yaraato qofkii waxa ku dhacaya madax xanuun baa ku dhacay headache buu yeelanayaa waxa xanuunaya qorax xanuun buu yeelanayaa muruq xanuun buu yeelanayaa shoulderskaas hadhow wuxuu la imaanayaa isagoo bukaankii dhacayo oo kooranayn saas leeyahay waxsan dareemaya xanuunada cudurrada indhaha ku dhaca waa badan yihiin kuwa waxa la yiraahdaa error of the eye waxyaabahan indhaha aragtida yareeyo kale misalan cudurrada la yiraahdo myopia-da hypermetropia-da astigmatism-ka amblyopia-da waxaas oo dhan waxay la xiriiraan due to the low vision macnaha aragtida yaraata tan fog ha noqoto tan dhow ha noqoto cudurrada qaybtan kale ama kuwa cimilada keento ha noqoto oo hadda meesha ku nool lahay waa hot climate cimilo aad u kulul weeye Soomaaliya kuwaas oo kale waxa la xiriira trigium wax la yiraahdo ama xanuunka trigium-ka waxaas oo dhan waxa ay xiriir la leeyihiin wax la yiraahdo indhaha aragtidooda yaraata low vision-ka sababa wixii kale infection ah oo iyana la xiriira jirka ka imanaya ama allergy jirka ka imanayo kale ulcer-ka kale waxyaabahan corneada cadeeya ama qaybta hore isha cadeeyadana waa xabad qofka gudihiisa jirka ku jiro oo bacteria ha noqotay inay sababto number 2 ilmaha markuu dhasho adduunka waxa jira wax la yiraahdo medical check up oo ah in caafimaadkiisa guud ahaan dhan cunuga la control ama la jeegareeyo ama la ogaado number 1
indhaha ka ah haddii masalan ilmihii uu dhashay uu ku dhashay wax la yihahdo infection oo kale oo indhihii ay mataqaanaa indhihii ama allergy ku dhasho kale maamada xaggeeda ka soo raacay by birth markuu dhalinayay congenital ay tahay macnaha waxaad kow xoog la saaraa waa lambar kow indhaha la eegaa argiisa la ogaada cabirkaasi cunugaasi ma u baahan yahay in indhihiisa dhow mustaqbalka ay noqdaan masalan cudurkan la yihahdo amblyopiyada oo kale waa xanuun aad khatar u ah dadka badanaa aysan ogaan karin markuu ilmaha dhasho ilaa iyo laga soo gaarayo 7 sano kale baa la ogaan karaa wax ka qabad uu leeyahay ha noqoto dawo ha noqoto qaliin haddii 7 sano la dhaafay ka dambeeya ishaasi waa il arageeda uu tegay aragtidaas isha meesha ugu dambeysa wax ka arki karo qofkaasna waxa weeye waa 6/60 ilaa 6/36 oo ah macnaha in aragiisi qofkii uu yaraado sabuurda ilmaha oo arki karin oo kale waxaa taasoo kale waxa weeye nasiib darro u haysta carruurta Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed inaysan carruurtooda ka warqabin indhahooda meesha ay mataqaanaa ku dambeyn doonaan waxyaabaha naga maqan oo kale u baahannahay inaan dadku ku wacyigeliyo waxa weeye inaan aad u isticmaalno vegetables ama qudaarta taasoo fitamiino badan ay jirka faa'iido u tahay sida kaarootada oo kale xagga indhaha haddaan ka hadla masalan kalluunka oo kale ukunta oo kale bacoolaha waxyaabahan badda laga helo bacoolaha la yiraahdo in la jiro dadka reer xabadka aad u yaqaana waxaas oo dhan timirta oo kale waxaas oo dhan way soo celiyaan aragga indhaha soo celiyaan inta kale aan raba inaan ku daro waxa weeye haddii ay noqoto in wax isticmaashid oo kale billahi calayk ugu yaraan waxaa isticmaashaa wax shucaaca kaa celiya oo ka soo baxaya computerkaas ama mobilekaas ka soo baxaya waqti koobanna si oo energy-gan kaa baxay waxa u baahan tahay in laba jibaaro la soo celiyo haddii all the time mar walbaba waqti kastaaba lagu bixiyo hal meel wax lagu bixiyo waxa muddo xogaa in low vision badan ay imanayso